dowladda Itoobiya ayaa wadata laba qodob oo waaweyn oo ay doonayso inay ka dhaadhiciso dowladda federaalka ee Soomaaliya. wafdiga dowladda Itoobiya ee soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa inay hor fariistaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxay isugu jiraan xubno kala duwan oo ka socda wasaaradaha kala duwan ee dalka Itoobiya iyo laamaha amniga ee dalkaasi. laba qodob oo waaweyn ayaa ilaa iyo hadda la sheegayaa inay hor dhigi doonaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo quseeya arrimaha gobolka isla markaana ay daba socoto hindisaha Addis Ababa ay ka damacsan tahay gobolka Geeska Afrika. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la kulmi doonaan ilaa iyo hadda maxaa laga ogyahay. malafyada dowladda Itoobiya wadatana maxaa lagu tilmaami karaa. maxayse tahay qorshaha Addis Ababa xilligan ay damacsan tahay oo ay wafuudan sare ugu soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa iminka waxa uu u muuqanayaa inuu ku jiro go'doon siyaasadeed marka la fiiriyo xaaladda dalkiisa uu wajahaya ee la xiriira arrimaha gobolka, siyaasadda, amniga iyo diblomaasiyadda. dowladda Itoobiya waxay ku dadaalaysaa sidii Soomaaliya ay markaan ugu yeelan lahayd galaangal xoog leh isla markaana ay uga dhigan lahayd sukeeye iyo dowlad si weyn ay saaxiibo u yihiin. iyadoo taa laga doolaya Addis Ababa waxay maanta wafdi heerkiisa uu sareeyo ay u soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wafdigan ayaa ka kala socday wasaaradaha difaaca Itoobiya, hay'adda sirdoonka ee dalkaasi iyo xubno ka socda wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Itoobiya. laba qodob oo waaweyn ayay Itoobiya markaan damacsan tahay inay Soomaaliya la hor fariisato sida ay ku doodayaan diblomaasiyiinta iyo waliba ilaha ku dhow oo la isku halayn karo uu la hadlay barnaamijka Barrow Show. wafuudda ka socda dowladda Itoobiya ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi, gabadha lagu magacaabo Caasha Maxamed Muuse, waxaana sidoo kale ka mid ah ninka lagu magacaabo Mazugo Arga oo ah wasiir dowlaha amuraha dibadda dalka Itoobiya. xogta barnaamijkan uu helay waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in dadka wafdigaasi ka tirsan uu ka mid yahay taliya ku-xigeenka sirdoonka dalka Itoobiya. ujeeddada ugu weyn ee Itoobiya hadda miiska u saaran ayaa waxa ay tahay sida ciidamadeeda ay u sii joogi lahaayeen gudaha Soomaaliya maadaama ay ka hareen howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta ku jooga Soomaaliya, taas oo Itoobiya laga saaray isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hore u sheegtay in ciidamada Itoobiya ay Soomaaliya ka baxayeen dhamaadkii bishii aynu ka soo gudubnay ee December. laakiin Itoobiya oo la leeyahay waxay la kulantay wajigabax ayaa iminka waxa ay ku dadaalaysaa sidii arrimaha joogitaanka ciidamada Itoobiya ay xal ugu heli lahayd. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli sheegin inay dib uga laabatay go'aankeedii hore iyo in ugu yaraan ay wax isbedeleen. laakiin Itoobiya iyo waliba rajimka Abiy Ahmed waxa uu muujinayaa galaangal xoog leh kaas oo ku doonayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku qarxiyo in ciidamadiisu ay qayb ka sii ahaadaan joogitaanka ciidamada Afrikaanka ee Soomaaliya. golaha ammaanka ee midowga Afrika ayaa hore u sheegay kulan xasaasi ah oo ka dhacay Addis Ababa in ciidamada Itoobiya aanay u hayn dhaqaale ku filan oo qayb ay uga noqon karaan howlgalka maadaama Soomaaliya ay hore u soo gudbisay in haba yaraatee Itoobiya aysan qayb ka noqon karin howlgalkaasi. sidaa darteedna qorshaha uu dejiyay goluhu Itoobiya hadda uusan boos uga bannaanayn. laakiin waxaa la hor dhigay sida wararka diblomaasigu ay tilmaamayaan in Itoobiya iyo Soomaaliya loo sheegay in laba arrin ay mid doortaan, taas oo la xiriirta in labada dal ay si gaara iyaga heshiisyo u galaan. Itoobiyana dhaqaalaha ku baxaya ciidamadeeda ay Soomaaliya u soo diraysa iyadoo la baxdo, taas oo Addis Ababa wararku ay tilmaamayaan inay ku dareemayso culays weyn oo dhaqaale maadaama ra'iisul wasaare Abiy dowladdiisu ay dagaal kula jirto dhinacyo waaweyn oo jabhadaha oo ka soo horjeeda, kuwaas oo ay ugu mudan yihiin jabhadaha Oromada ka socday iyo kuwa Axmaarada oo si weyn u diidan joogitaankiisa xukunka. labadan jabhadood ayaa dhaqaalaha ugu badan dowladda Itoobiya uu dagaalkoodu ka galay, halka dagaalada Itoobiya ay hore u gashay ee gobolka Tigrayna dhaqaalihii ugu badnaa xukuumadda Addis Ababa ay ku waayeen. laakiin hadda joogitaanka ciidamadooda ee Soomaaliya waxay ku noqon karaysaa mushkilad kale oo weyn
taasina waxa ay soo dadejisay in Itoobiya ay u muuqato in markan Soomaaliya ay isku dhiibayso sidaas waxa oranaya dadka amniga iyo diblomaasiyadda ka faallooday ee barnaamijkeena uu wax ka weydiiyay imaashiyaha ciidamada Itoobiya hadda Itoobiya marka qodobkaasi laga yimaado oo aan la ogeyn go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadan karayso waxa ay sidoo kale doonaysaa in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeyso dhamaystirka gudayadii dhinaca farsamada ee ka shaqeyn lahaa wada hadalladii ee Soomaaliya iyo Itoobiya ee Ankara lagu soo bilaabay taas oo loo madlan yahay in bisha February ee sanadkan labada dhinac ay soo fadhiistaan isla markaana ay ka doodaan arrimaha xasilooni darrida gobolka uu abuuray ee diblomaasiyadda cirka ku laalay hadda Abiy Ahmed waxa uu fursad ka dhex raadinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya labada qodob ee Addis Ababa hadda lurka ugu ballaaran ku haya waxa kamid ah arrinta la xiriirta ciidamada iyo sidoo kale tan la xiriirta in ciidamadiisa badda uu helo mandiqad ay badda cas ka galaan taas oo Itoobiya ay hore ugu sheegtay in ay doonayso xuquuqda ay leedahay ee la xiriirta inay badda gaarto laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in haba yaraatee Itoobiya aanay u hanbiyo ay badda goob ay badda ka gaarto gudaha Soomaaliya dalalka gobolka qaarkood ayaa waday galaangal xoog leh oo siyaasi ah oo la xiriiray in khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya xal ballaaran loo helo dalalka arrintaasi garwadeenka ka waxa kamid ah dalka Djibouti oo labada dhinac xilliyo kala duwan ku casuumay dhamaadkii bisha December aynu ka soo gudubnay magaalada Djibouti ee caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti labada dhinac ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah u cadeyn kulamada Djibouti ka dhacay waxyaabaha sida hoose loogu lafaguray laakiin diblomaasiyiintu waxay leeyihiin way caddahay in Itoobiya galaangal kasta oo ay doonayso Soomaaliya inay ugu soo dhawaato inay hadda sameynayso marka laga yimaado arrimahaasi Itoobiya in waftigan aadka heerkiisa uu sareeyo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenka sirdoonka wasiirka gaashaandhigga Caashe Maxamed Muuse iyo wasiiru dawlaha amuraha dibadda Misgaano Arga ay gudaha Soomaaliya yimaadaan waxay ka dhigan tahay baa la yiri walaac Itoobiya ay ka qabto ciidamada Masar ee maalmaha soo socda iman doona gudaha dalka kuwaas oo qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS bedelay kuwaasi oo hadda shaqooyinka u imanayaan ay qayb ka yihiin xasiloonida gudaha Soomaaliya laakiin Itoobiya imaashiyaha ciidamada Masar waxay u aragtaa mid saameyn xoog leh ku haya arrimaha la xiriira amnigeeda qowmiga ah taasina waxay soo dadejisay walaaca Addis Ababa iyo waliba in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hadda si aad ugu soo dhawaato diblomaasiyiintu waxay ku doodayaan Soomaaliya hadda fursad weyn inay gacanteeda ku jirto taas oo qaabka loo jiheeyo ay wax badan ka bedeli doonto mandiqada geeska haybadda iyo haykalka qarannimo ee dalka waase haddii lagu eego indha diblomaasiyadeed iyo waliba garasho dheer sidaas ayay ku doodayaan diblomaasiyiinta barnaamijkeenu uu la hadlay